madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ka dalbaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya si dowladda Soomaaliya awood ugu yeelato sugidda ammaanka dalkeeda. Hadal kooban oo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu ka jeediyay kadib kulan uu la qaatay dhigiisa dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Uganda ayuu sheegay inay muhiim tahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya ka qaadaan cunaqabateynta hubka ee saaran. madaxweynaha ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in si dowladda Soomaaliya awood ugu yeelato sugidda amniga ay muhiim tahay inay hesho awood ciidan oo dhameystiran taasoo ku xiran in laga qaado cunaqabateynta hubka oo muddo dheer saaran Soomaaliya. Anigoo taageersan dadaalada qaramada midoobay ee xasilinta Soomaaliya, haddana waxaan si wadajir ah u codsanaynaa in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka si ay awood ugu yeelato in amniga mas'uulka noqoto, ayuu yiri madaxweynaha dalka Uganda. Sidoo kale qoraal wadajir ah oo ay soo saareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Uganda ay beesha caalamka uga codsadeen inay taageeraan ciidamada Soomaaliya si amniga dalka loo xoojiyo. Nofeembar sanadkii hore ayaa xubnaha golaha ammaanka u codeeyeen in Soomaaliya lagu sii hayo cunaqabateynta hubka ee saaran inkastoo hore loo qafiifiyay, waxaana goluhu mar kale ka fiirsan doonaa arrintan bisha Nofeembar ee soo socota.